الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. halkan maanta waxaan ku duubi doonaa kelmaddaasi waa midaan isleeyahay maanta ayaa loo baahan yahay. waxaan had iyo jeer ka hadlaana waxa weeye waaqica mayaala waqtiga cidaan u hadlo iyo cid iga hadlisana ma jirto. waa laga yaabaa waxyaabahan ku hadlo qaar inaad diiddo qaarna aad ogolaato, laakiin waa ra'yigayga. cid igula shuraaka ah ma jirto. waxaa hawshaa maanta ii geeyey, waxaan arkayay wasiiradii deegaankan ka soo jeeday oo sawirro iska soo qaaday, rag indhoweydba la doonayay oo beri hore aynu ugu dambeysay. marka hore waan bogaadinaynaa inay iyagoo wada jira iska soo qaadaan sawir, inkasta oo ragga qaarkii aanu aada u kasi weynayoo isha aada ugu beniininay, laakiin markii dib aanu garannay cidda ama qofka u yahay. mar labaad hambalyaan u diraya wasiirada. waktigaas sawiraysaan oo wakti aada u adag oo dadkii mas-uulka khaaska ah tacaamkaa marka laga yimaado ay idinka saareen, dadkii sadaqadiinu ay ku baxaysay warkoodu ama maanta xaaladoodu biyo la-aan iyo caws la-aan ay taagan yihiin. ilaahay subxaanahu watacaalaa ha u roonaado. hurro walan walbaan heesihiisii cambaro heestii way silsiladaasi ku bilaabantay oo waxaa ka mid ahay labadan kelmadood. wuxuu yidhi aqalkan daarta laga dhigay lagu xidhay daroofyada, dadabtan wada qardhaasta ah, dalladahan wada xariirta ah ee dusha kaaga soo xidhan, waan arkaa darfooley hoostaada lagu daashay. dadkiinnii muxuu maal dufan iyo adduun helay, mise doogsin keligaaya ayaad ku dabaalanaysa. wasiirada waxaan yar dareensiinayaa deegaamadii aa ka timaadeen ama deegaamada hadhow aa iman doontaan markaa gurmadka codka u baahantihiin. maanta xaaladooda waa adagta. waxaa laydinka baahan yahay maanta, idinkoo aan dawlad waxba ka sugin, idinkoo aan hay-ad ugu qaylin, jeebkiina maanta inaa wax ka soo tartaan. ninkii la odhan jiray baarud ibraan, ilaahay u naxariisto, reer burcadii hore u ahaayo gaadhidii hore dhaadsana buu wadan jirayoo meesha beer la yidhaha u bixi jira. waxaa la yidhi islaam nimcadu ka muuqato ayaa soo fuushay keligeed. markay soo fuushay buu iska dhaqaaqay. markaasay tiri baaruuda miyaad lawrkii sugaynin? yaa sayidii adigaaba lawri buuri. wasiirada waxaanu leenahay war idinkaa hay-ada oo idinkaa dawladahe dadkii waa idin sugaya. weji baa u baahantihin hadhow dadkaa ula timaadaan. hadda laydiin tuujin maayo, hadhowto laydiin tuujin maayo. waayo dadkan qof loo kabtuuray ma jiro, xisbi loo kabtuurayna ma jiro. maalinta ay liitaan ayay idiin baahan yihin. idinkuna maalinta codkaa u baahan tihiin, maalintaa waa odhan kartaan maalintaasaanu lahayn. hadhow waxaa laydin odhan doonaa kii maalin maa tahay baa lagu odhanaya. de waa inaad maalin aad sheegato aad maanta samaysata.
ilaahay subxaanahu watacaala ha u roonaado cabdi aadan qays ayaa sidan oo kale heestiriye wuxuu yidhi shimbiryahay lalaysaa adna laydha guud baad leexaysanaysa ragna labadib laageed xadhig loogu loolsho luguhuu ka xidhan yahy lurkan weli ma kulanteen mise laba jir baa tahay la garaada raaxada fii eedhadiin iyo qaboojiyayaashiina mar haddaan cidi idinla qabina meeshaa ka timaadeen maanta ay shufiya marurug tahay waxba idin tari mayso hadalkayga waxaan idinku soo gebagabaynaya anigoo aan idinku talax tegayn nin fardayahana ayaa farda lagu eriyey ciddii la socotay buu marba weydiiyey war yaa ugu soo horeeya markaasuu waxaa ugu soo horeeya xamar waxaa ugu soo horeeya bullaale qaaje caynab bood magacyadii buu kala sheegay faraska marba ugu soo horeeya fardaa lagu eriyey markii dambe war yaa ugu soo horeeya ashkir waa ninkii dixiddaajee dareemo ugu luqulqayna orodsii buu yidhi cagaheynaa nala baxsada wasiirow maanta cagihiinun baa idinla baxsan kara taariikh baa ka hadhaysa abaartaa maanta iyo coddoonka ka dambeeya ee cod dooni doontaan waa laysu eegaya waa laysu miisaamaya halkaasaan kaga hadhaya wasiirada dowladda mudane madaxweyne muuse biixi waxaan leeyahay madaxweyne suugaan hore waa ina fadal waa ina maxamed nuur ingagabaygaa tiriye maxamed nuur fadal weeye wuxuu yidhi bagogore bannaankii xadeedba holdhanaankiisa beer weeso iyo keymihii buubku miranay barqa weerar dhacay keymo geelashoo bookha laga qaaday barbar orodka raacdada markii bogo la soo gaadhay bismillaahi nimankii dabkii boobeybaan baaruuddu nimankay maryaha baal jartaana raggii beerka saaraan ahaa baacad sooraha wadaadkii ba'naan jiray raggii baabaashaan abaar baa arlada maanta ka jirta dadkana abaartu ay haysaana waa dadkii codka ugu badan idin siiyey waana dadka maanta aa codka ka sugaysaa haddaad is soo sharaxdo haddaad cid kale soo sharaxdo haddaad kororsiimo doonto waa dadka aad garabka ka sugayso gurma degdegay idinka baahan reer koonfureedku wakhtigii abaartu ku dhacday waa tii lacagta buuraha leeg inta wadaadadiiyo ragga waaweyn loo xambaariyey halkaa lala maray ilaahay subxaanahu watacaala ajar iyo xasanaad idinka kaa siiya adigii ciddii abaabushaybee gurmadka wanaagsan la galay dadkan maanta abaartu hayso haddaad doonto tigreygaa dagaalka ku joogeeba ka dhigo way kuu baahan si ha dhowto ay taariikh kuugu noqoto haddii kale waxay noqonaysaa welibaa wakhtiyadii debadaha la joogay ayaa oday baa gaadhi meel ka galay meel weliba markaa aad iyo aad cabsi u leh wakhti rooba waana gaadhi weyn baabuurtii kewayga loodhan jiray jabaad meel iska joogto baabuur waaweyn wadaatuu yimi wuxuu yidhi baandoy gaadhiga halkaasuu galay ma la soo jiidaya mise nin iyo wixii baa loo kala tegaya dadkan maanta caawinuu idinka baahanya waan arkay waxoogaa yaroo kumanaanahoo badho saabka iyo gobolka iyo loo soo dhiibay waa arkay hogol waxba kala saari mayso waxay ila muuqataa maanta nadhka weyn oo aa furtaan madaxweyne ayuunbaa xagga ilaahayna wax kaga helaysaa dadkanna wax u tari karaya ummaddana adaa ka mas-uula ilaahay marka laga yimaado dadka adaa ka mas-uula inkastoo aad u taqaano dadka inay wasiirra kuugu maqan yihiinoo ay meel kuugu xaraysan yihiin inkastoo aad u taqaano ama deegaamada aanu ka soo jeedno aad u taqaano sidii qoolleydin la yidhi dadkan caamadaabaa waxay yidhaahdaan qoollaydan qoorta ka suntan nebigii baa suntay waxba kama jiraan inkastoo sidaa aad u taqaano inay qoorta kaaga suntan yihiin adiga iyo xisbiga kulmiye inay qoorta kaaga suntan yihiin aad u taqaano
dadkii maanta wuu kuu baahan waana ku sugay ama waxay noqon doontaa baandoy nin iyo wixii baa loo kala tegaya ama 5 cashaan kuu qabanaynaaye waxbaa dadkan u keeni doonta oo mas-uuliyad baa kaa saaran haddii kale nin waliba wixiisunbuu wax ka qalanaya intaan halkaa kaga tago qoladan mucaaradka weliba ninkaan ilmaadeerkan ahay baan si gaara loo sii hadlaya hersow 7 wasiir aan sheegayaa hadhowto iyo adiga tartan baa idinka dhexeeya tartanka idinka dhexeeyaana waa tartan codoone tartan dagaal maaha maantoo kalena wax la sii gashada meeshii daleellaa libaax dagan ka eeg tahay haddii dawladdu ka gaabiso dadka inay wax tarto oo maanta 7 wasiir ku badin maynee nin iyo 200 oo booyadood intay soo dhiibaan 1400 ee booyadood wax weyn bay taraya taasi hadday dhici weydo way kuu bannaan tahay inaad ka faa'iidaysato weliba adiga si gaara bay faa'iida kuugu sii jirtaayoo xisbi dadka badidiisu maanta ama deegaamada aynu ka soo jeedna aanay uba jeenya miiqnayn ayaad guddoomiye ka tahay maanta jaanis baad haysataa haddii dawladdu gabto halkeeda iyo haddaanay gabinba inaad wax tusto ummadda in lexejecel kaa hayso oo aanad cod uun ka doonayn ee dadku ay dadkaaga yihiin oo codna aad ka rabto ehelkaagiina ay yihiin sadaqadaada iyo sakadaada kuway gaarka ugu baxayeen ay yihiin ayada halkaa ayaa kugu bannaan nin kastoo maanta waxna tara oo dadkaa jaban wax tara waxay noqonaysaa inbaa hore u gebiyo dowladdu markii aan ka jabiyey boqonka taaggiisa habeenkiiba way bidhan lahaa bahalkii cawlaay bacilaama goortay dhammaan iga dulbooyeysay basaraysna inay bagay tidhi beerka ogsooni gabaygaas waxaa ku jiray abaal badan abaal bara abaal buriya dheeraada lixaad waa baraadhe hadduu ii bogsado xoogu haddii biixiyaha eebbahay kay isugu beego abaal badan abaal bara abaal buriya dheeraada ninbakiisa kaan ugu bedeli beerka ogsooni horaan u sheegay war maanta dadkan liitaa dawladey wasiiradayadow guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddaniyow dadkaasi hadday dar ilaahay u noolaadaan hadhowto inaad ku soo lugo'daan oo aad tidhaahdaan xisbi hebel baynu hayno waxaanu idinka doonaynaa cod amana taageera hadhow waa idin nacasnimo dad abaal gudo oo abaal galana dadkani weeye waxna waa laga filan karaa maalintay u daran tahayna waxaad ku diirsatay waad ka helisa laakiin dadweynihii dadkii debadaha joogay ee qurba joogtii ee maantoo kale dadka wax soo tari jirayna xaaladoodii waa ka warhaysaan inaanay maanta awood buuran iyo taal buuran lahaynoo dhaqaalihii adduunyaduba uu kala kacay war ama dawlad ahow ama raggaa wasiirada aan sheegaya ahow ama xisbigaa mucaaradka angaarka u mutay guddoomiyaha ahaada 5 cashaanu idiin qabanayno 5taa casho haddii naloo ku soo jawaabi waayo waana isdaberaynaa waana noolaanaynaa maalinta wuxuu yidhi axmed muumin seed maalintii xisbiga waddani wixii la ogaa lagu sameeyey waa yaraysateena waa inoo boorama buu yidhi maalinta sidiinii idinkoo dhawataa halkan noogu timaadaan maalintaasay inoo ahaan doontaa nin waloo hadalkaaga sumad ku dhow hadda maalinta ay daran tahay dad la tirsadaan wuxuu yidhi odaygii adeerka naxariis ilaahay ha siiye ina nuur fadal
gabaygaa haddeer aan tirinayay ba'da buurmadka iyo lalabahaanu nahay buur la hoos galo waxaa baalku naga taagan yahay maalintii belo maalinta rag loo baahan yahay rag wax gala oo wax gudaan nahay maantana dadka aan sheegayow idinkoo mudan oo mahadsan wixii aadna gashataan walle waa naga helisan ninkaa waxbana gashanow warseedow ha igu soo lugoyn lahasha waa ceebe asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu